show me the money. Wait idin la wadaag guys meel ba joogtaan soo dhawaada hadii aad janal tahay subscribe dheh sidoo kale gambareyga ku dhufo sa video walba aan soo janalkan waxaan ka caawin doonaa sida online lacag loogu sameeyo cryptocurrency ga Instagram how to make money video waxaan ku hadli doonaa farqiga u dhaxeeya bangiga iyo sidoo kale cryptocurrency iyo midka ugu wanaagsan kala isticmaali karo magacaygu waa Maax hadii aad janalkan ku cusub tahay hadda subscribe dheh subscribe waa free farqiga u dhaxeeya bangiga iyo cryptocurrency bangi marka la joogo marka rabto lacag wuxuu ka qaadaa wax la lacag transaction ah tusaale $10 haysataa waxa rabtaa inaad u dirto cali u joogo Mareykanka bangigu wuxuu ka qaadanaa 10 oo dheer ah sababtoo waxay tahay soo kugu geeyo qofkaas maadaama uu yahay bangiga middleman ama qofka saddexaad oo fududeynaya in lacagtaasi ay gaarto laakiin cryptocurrency ga waxay qadka bixinaysaa qofka dhexe oo bangiga ah ay qadka ka bixinaysaa in lacagta markaas uu qaadanayo ah oo middleman uu yahay ama qofka saddexaad booska marka lacagtaasi laga qaadi lahay oo ah $10 dheeraadka ah iyo $10 aad diraysi booskaasi cryptocurrency ga waxay ka qaadi doontaa lacag aad u yar waa sababta ama farqiga u dhaxeeya cryptocurrency ga iyo bangiga faa'iidooyinka ay leedahay cryptocurrency ga ama bitcoin marka la joogo waxaa kamid ah inay tahay lacag oo decentralized ah aynan jirin qof dhex oo ku dhex jiro sida bangiga oo kale ah just aniga adiga aan isku diri karno as a mobile shaqadaasna waxaa qabanayo blockchain hadalada laga dhahay marka waxaa kamid ah marka la joogo cryptocurrency ga faa'iidooyinka ay leedahay Bitethel oo ah ninka iska leh Bible wuxuu dhahay Bitcoin ama cryptocurrency way guuleysatay inay develop gareyso currency-geeda ama lacagteeda waxaa kaloo kamid ah hadalada wax ka dhahay founder-ka ah oo UK si fiican loo yaqaano anigu wuxuu dhahay waa maalgashtay cryptocurrency waxaan ogaaday faa'iidada ay leedahay waxaa kaloo kamid ah Bill Gates asigana wuxuu dhahay mustaqbalka cryptocurrency ga lacagaha digitalka waxay noqon doontaa lacag markaas faa'iido leh that's the best guys waxaan rajaynayaa in aad u fahanteen farqiga u dhaxeeya iyo cryptocurrency bangiga I hope wixii markaas commentiga hoos kusoo muuji bye bye